بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga qaaliga ah ilaahay idin barakeeyo meel kastoo adduunka uga nooshihiin. waxaan idin leeyahay allah idin xifdiyo maalka, awlaada iyo cirdiga iyo sharafta naftiina iyo inti aad mas-uulka tihiin oo dhan iyo waalidiintiina allah idin xifdiyo, diinta allah idin xifdiyo. ilaahay idinma fidneeyo, awlaadana ilaahay idinkama fidneeyo. waxaad jeceshihiin qof kasta muraadoo leeyahay, muraadkiina oo macaasida ilaahay ku jirin allah idin siiyo. bacdi salaan, bacdi duco, jimco wanaagsan axbaabiya mar labaad. walaalahayga qaaliga ahow, qiso cajiib jidana idin wadaa ood ka faa'iidi doontiin oo dhiirigelin idin noqon doonto wax badan. maasha allah tabaaraka raxmaan. insha allah allah naga dhigo kuwii ka faa'iideysta dhammaanteenba. kheyrka markastaba, kheyrka wax walbo kheyrka kala baxo, shartana ka fogaad allah naga dhigo. qisada intaan noo gelin waxaan rabaa in yar oo baraarujin ah. taleefon lambarka halkaas ku qoran, sheekh cilmi oo ku qoran yahay. waxaan rabaa inaan ku ururino sidaqadii dadka masaakiinta ah ee bisha ramadaan aan afuri rabnay, haddii ahaan laheyd hooyooyinka agoonta ah iyo haddii ahaan laheydba maaragtaye dadka aan afurka awoodin. walaalahayga qaaliga ahow, mar horaan soo diyaari waa aniga idiin sheegay. gabdhaha abaayooyinka waxay igu dhaheen abaay filsan intee qaar waxay igu dhaheen xaggeen kusoo dirnaa diyaaraan nahay. marka ilaahay heydin xifdiyo. bisha ramadaan sidaqooyinka aruurinayno waaye. hadda bisha shacbaan waxay maraysaa 3 iyo 10. marka intii aan ka gaarnaa aruurinaynaa $10 lacag waaye, $20 lacag waaye, $50 lacag waaye, $100 lacag waaye. naftiina iyo maalkiina allah idinkugu xifdiyo. ilaahay waxaan idin weydiinaa inta sidaqada la baxdo inay hadday xanuunsan yihiin xanuunkooda ilaahay ku caafiyo. ilaahay waxaan idin weydiinayaa intii dhibaataysan inuu dhibka ilaahay uga feedo, intii ilmo ka xanuunsan inuu ilmaha uga caafiyo, intii awlaad ay ka fadarowday amba awlaad maaragtaye ay qabala'daha inuu ilaahay ugu dejiyo, ilaahay ugu soo hanuuniyo. ilaahay u weydiinaya, ilaahay waxaan u weydiinayaa jimcada fadligeeda barakadeeda ilaahay subxaana wa tacaala boqorka ahayd xilligeeda mustajaabada allahna waafajiye. ilaahay waxaan idin weydiinayaa inta masaakiintaas lacag u dirto, waxaan ilaahay weydiinaya intay direen in ka badan inuu ilaahay soo geliyo, boorsooyinkooda iyo shandadahooda inuu ilaahay buuxiyo, oo kheyr iyo nimcaad ay sadaqada ku baxsanaa ilaahay ka buuxiyo. qolka oo ku jirto 2 kun ku dhawaad ee ahlu dikra ahna waan dhex dhigaya gabdhaha ahlu dikriga. inta walaalo sidaqada la baxday in loo duceeyo aan codsi ka sameysanaya. anigana qaasa idinkugu soo duceynaya, salaatu leela idinkugu kacaya. walaalayaalo, dadkaas masaakiinta ah oon maaragtaye afurka haysan Soomaaliya joogo, waxaan idinka codsanaa inaad lacagta ugu dirtaan taleefankan. wallahi waa iga ballan insha allah inaan ilaahay idin baryo inta masaakiintaas wax u dirto. qof aan aaminsanahay, sheekh aan aaminsanahay waa wiilkan habartuha waa aaminsanahay xoolahaas $1 dhexda ka duleelna cidna kama rabto. waxaan rabnaa kaliya le inaan anaga aan maaragtaye iscaawino oo aan dadkaas masaakiinta u gargaarno. baan ka rabaa qofkii yaqaano masaajidka Sheekh Cali Suufi oo jooga Sheekh Cilmi. qof kasta taqaano Soomaaliya ku nool, inta aqoon way jirtaa inay jirto, laakiin maasha allah waa u diraynaa. dadkaas masaakiinta loo qaybinayaa. haddii ahaan lahayd dadka qur-aanka akhristaan oo soo safraan oo wadanya kale magaalo kale kasoo safraan, deer Ethiopia laga imaado, deer Kenya laga meelo badan dadku imaadaan. ilaahay amarkiis masaajidkaas waa la yimaadaa. dad badan oo waxaa jiraan oo aan awoodin afurka oo maaragtay qariib ka ah Soomaaliya. dad haddii gobolada jiraan baahan waa la siinaa. haddii joogaan dadka maaragtay hooyooyinka kale waa la siinayaa oo agoonta haystaan. dadkii aan awoodin oo dhan waxaa available u ah alaabtan amba lacagtan aan aruurinayno qof kasto oo baahan oo dhibaataysan. marka walaalayaalow, waxaan idinka codsanaya idinkana inaan caawisiin insha allahu tacaala biidnillahi kariiman. wallaahi naftaydan kasoo bilaabay, taasna ma aha inaan ku sheega halkan, laakiin waxaan rabaa inaan ogaatiin inaan idinku dhiirigeliyo in aan aniga nafsadeyda kasoo bilaabo. wax kasta oon sameynayo kheyr waxaan jeclahay in aniga nafsadeyda kasoo bilaabo. marka lacagta ku shubashadii waa kii lagu shubayo waaye. qof kastoo awood haddaa Soomaaliya joogto $1 haddaa tirto qof dhana afuris, habeenkaas afurka dhiibtay. $10 haddaa haysid hala xishoon, $1 haddaa haysid hala xishoon, 20 haddaa haysid hala xishoon, 30 50 qof kastoo dibadaha kasoo diri kara xataa waa kaasaa magacina waan kusoo qoray, taleefankana waan kusoo qoray, taleefankaa lagu shubaya.
marka ilaahay idin barakeeyo sadaqadaasaan rabaa in aad nagala qayb qaadatiin inta ramadaanka ka dhiman aan aruurino kadibna aan ummadda ugu gargaarno bacdi sadaqadii iyo kheyrka isku baraarujintiisi waxaan gelayaa marka qisadiyaan gelayaa qisadan waxay ka sheekeynaysaa suuratulbaqara ee qusaysaa gabadhan waxa waaye gabar urduniyad aanba camaan kasoo jeedo waa wadanka aan ka imida markaan maraykan imaanay maasha allah ilmihii waxay igu soo barteen waxay tiri ayada waxay u dhalatay camaani waa urduniyad waa ma ahan cumaan ma ahaya camaan marka gabadhan waxay dhahday horta anoo yar oo 7 jir meelahaasa ayaan waxay tiri suuratulbaqara xifdiyey laakiin ilmo yar waayo waa iskaga tagta adduunkii waa isbedelay gabadhi way qaangaartay way weynaatay way xanuunsatay xanuun daranaan qabtay cunugtii waxay tiri saan u joogay unbaa waxay tiri in cirbada laygu taagoo kala noqday cirbada in laygu taago kala noqday dhahda gabar weyn oo kuray ah gabar waxa waaye 12 jira waxay dhahday xanuunku waa soo darsaday aniga dhan jirka dhan oo iga saameeyey xanuun daran oo igu noqoyey aan dhinac isbedelay waa u adkaysa waayey waxaa noqday xaala in laygey dhakhtarkii la iga qaado dhakhtarkii xanuun qofku ku dhegan yahay waaye marba waxay tiri qalajiysi mar waxay tiri wuxuu isiinaa maxaa la dhahay daawooyin oo qofka oo maaragtay dadka u malays inay kabaabyo ku taagantoo kale cirbadaha ku taagan yihiin kaleto la siiyo isiinaa waxay dhahday daawadii marka waxay sameynaysaa ay tiri daawadii markaan qaato waan fiicana qof jiifto oo soo kacday amiinkii saan u jiifo musqusha unbaan galaahay tiri waa soo baxaa iyo salaada noloshaasaan ku noolahay daawada jirkeyga haddii ka baxdo sidii haddana bilaabaa dhahda muddaan saas ku noolaay dhahday oo waxay tiri xanuunka waxaan ka qaaday shock waxaan ka qaaday tiri isla hadal macnaha qofka ilmaha yararkaa shooka ku dhaco markay xanuunada qaar ku dhacaan oo kale xanuunada kale iigu soo darsoomay tiri waxaan rafaado oon silco waxaan noqday tiri qof daawo ku nool daawadaasaan ku noolahay daawada jirkeyga haddii ka baxdo waa xanuunsanaa kadib waxaan bilaabay tiri haddana inay iigu darsoonto tii hore la iiga qaatee in guryaha wax iiga yaryeeraan oo waa shock macnaha waa li camal qofka bilaabaa in guryaha wax iiga yaryeeraan in maaragtay shanqar ii yaryeerto in aniga la ii yeero kadib waxay tiri guriga waa ku haka waa qolkeyga inaan jiifto waa baxay dhahday hooyadii qolkeedan tagay habeen kasto hooyadii la seexanaa 3 sano aan hooyadii hoosteeda jiifay dhahday anoo gabar weyna waxaan isku dayay tiri inaan iska dhaafo daawooyinkan oo aan isticmaalo dabiici si dabiici aan isku fiicnayo nag wax walba waa sameey tiri dhakhtar kasta la iga daal xanuunadii ugu soo baqteen hadda shoog camalaan bilaabay waxay dhahday gur kaligay masiixan kari gabar xilliga la guursanayo ku jirto oo haddana carabtaan mugta anaga way naga sii jilicsan yihiin muraal dilaacay ku tahay anaga waxaa moodaa maasha allah tabaaraka raxmaan iimaan inuu ilaahay iska keensi gabadha xilliga la guursan lahaa xanuunsatay shoogi kasii qaad waa fikri waxaa isrii tiri suuratulbaqara bilaaw waxaan dhageystay tiri dad badan oo ku caafimaada suuratulbaqara waa baxay waan bilaabay tiri ma dhammayn jirin xoogaa waxaa moodaa tiri inay cirbadihii iga yaraanayaan daawooyinka iska dhaafay tiri waxaan rabaa tiri daawooyinka iska dhaafo aan xanuunka u adkaysto oo qur-aanka akhristo sidaan ahaan jira xoogaa yaran ka fiicnaada laakiin ma wada fiicnaanay tiri marka dambeetood haddana waxaan ogaaday tiri suuratulbaqara bilaaw ilaa dhammaad inaan akhristo aan go-aansaday dhahda waxaan akhristay tiri suuratulbaqara bilaaw ilaa dhammaad waxaan ku akhri jiray tiri kor cod aad u dheer oo aniga aan ismaqlaayo sida hadda aan idinkula hadlaayo camal macnaha hoos uma akhrinayn ma dhehaynin okay waxay dhahday tahliilna waa soo qaatay waa tuftay xanuunkii oo dhan waa iga tegay dhahda ka-ano inaan weligay xanuunsan inay dhahda
waxaan ku laabtay tiri qolkeygii waxaan ka dhismay tiri suuratul baqara bilowgii aan bilaabay aan akhrisanayay wax yar kadib waxaan bilaabay tiri inaan qolkeyga u guuro waxaan bilaabay inaan dego maskaxdu ii degto waxaan bilaabay xanuunoo dhan inuu iga tegay oon ilaababa inaan xanuunsanaay waxaan bilaabay dhahday inaan nashaad helo farxad helo aqliyan u fiicnaado maskaxiyan u fiicnaado jasadiyan u fiicnaado qof farxan oo macnaha farxad haysto gabadhi waxay noqotay gabar farxadeeda kaamil u tahay nolosheeda inta ka dhimana ka tegi ma doonay tiri marka qof kastana waxaan ku baraarujinayaa tiri inay suuratul baqara qof kastoo dhiban inuu akhristo horaanteeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam noo sheegay oo nagu yiri aqaduhaa baraka tarakuhaa xasara walaa tastadiicu ahlbadala oo macnaheedu yahay haddaa qaadatidni waa barako khayraad iyo nimcaad iyo barakaada ka helaysaa haddaa ka tegtidni waa khasaaro walaa tastadiicu ahlbadala macnaha waa badalka waa shayaadiinta iyo jinka iyo sixirka iyo qashinka nama gaaraan mana awoodaan inay wax ka qaadaan qofkii akhristo annagaan hore u qaadanin moogii aayad kasta iyo xadiis kastaba micnee wadataa ilaahay